السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا وناكسن صاحبة قيمها يقدرين تنقمضنا ملك سواد جوكتاني ولبا سيكا سواد نولا سعوتان هل كان يوال سلطانك تي في وحدو قبرتان سلطانك تي في ورر سحان حقيق دنا كوسا ليسان يحويه يقود بيه كاجر الصومالي عالمك قطبات حيساها بدنا وركان كويق دونان وحكام من نقونيا مدحوينها الدالك كينيا أهورو كينياتا وفرين وين أصود دري مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماجو كانت دلبدا إن كيس كبدا ديب لورد ديغو انت دورشد الصومالي أي كدا ما نيسو دلبك أهورو كينياتا ومدحوين فرماجو اسك ديداي iyo sidoo kale jawaab korol oo la siiyay madaxweynaha dalka Kenya maxaa ka jirin dawladda Kenya ka walaacsan tahay kiiska badda Soomaaliya iyo doorashada Soomaaliya waxaan warkeena ku eegi doonaa Uhuru Kenyatta oo maciin baday inuu la soo xiriiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabay looga hadlay kulankaas qadka telefoonka ku dhaxmaray Farmaajo iyo Uhuru ayaan warkeena ku soo gudbi doonaa qodobadeena kalena waxa ka mid noqonaya hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo markaasi Jubbaland ka bilaabaya doorashada golaha shacabka iyo Rooblo oo fariin lama filaan u diray hogaamiye Madoobe maxaad kala socotaa saraakiisha ka socda Kenya ee shirarka ka wada magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose waxaan warkeena ku soo gudbi doonaa hogaamiye Madoobe iyo saraakiil Kenyana oo shirar xasaasi ku leh magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maamulka gobolka Gadana waxay wacad ku mareen in hogaamiye Madoobe uusan imaa karin Gado iyo sidoo kale xubno ka socda walaac ka taagan kuraasta golaha shacabka lagu dooranayo magaalada Garbaharey gudoomiyaha gobolka Gado oo shir jiraayad ku qabtay Gado iyo sidoo kale fariin hanjabaad iyo digniin isugu jirto u diray hogaamiye Madoobe sida la isku qabadsiinaya doorashada golaha shacabka iyo diidmada maamulka gobolka Gado wararkii ugu dambeeyay waardiiso gudbi doonaa iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa dawladda Qatar oo taageero xoog badan ku bixinaysa doorashada Soomaaliya gaar ahaan ee tartanka madaxweyne Farmaajo oo la galayo siyaasiyiinta mucaaradka iyo wararkii ugu dambeeyay khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo markaasi wali aan xal laga gaarin waan idin soo gudbi doonaa saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saaro Suldaanka si share garay muuqaaladan saaxiibada gaarsiisay kula daawadaan like iyo comment-iga naga iloobin qaybta hoose noogu soo qor fikirkada saliimka ah iyo aragtidaada suuban adigoo markaasi ka aragti dhiibanaya qodobada aynu soo qaadanay waadna ku maasantiin sida noola socotaan iminkana ku soo dhawaada qodobadii aan dul maray oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena waxaynu ku bilaabaynaa warkeena madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa fariin markaasi u soo diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogaha qaar ayaa sheegay in qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta Uhuru ayaa ka walaacsan in markaasi kiiska badda la shaaciyo inta hogaanka dalka uu sii hayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna door bidayaa in murashax ay markaasi uu la macaamili karo oo ku soo baxo doorashada Soomaaliya si markaasi kiiska badda gorgortan looga galo madaxweynaha dalka Kenya ayaa qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna kala hadlay arrimo ku saabsan maxkamadda cadaaladda warqadda hortaale ku saabsan kiiska badda Soomaaliya wararku sida ay sheegayaan madaxweyne Farmaajo ayaa ka biyadiiday hogaamiyaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta fariintiisa wuxuuna u sheegay in xilligan uusan kala hadli karin arrimaha kiiska badda Soomaaliya maxkamadana looga dambeeyo 12 Oktoobar oo maalmo qur ay naga xigaan inay markaasi shaaciso kiiska badda go'aankaasina noqon doono kambiye kama dhibcaanka ee Soomaaliya ku qanci doonto wuxuuna sidoo kale wararku ay sheegayaan in Uhuru uu faramaran kala laabtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Kismaayo ka bilaabay ololaha doorashada golaha shacabka Rooblo ayaa fariin u diray Axmed Madoobe wuxuuna ku wargeliyay inuu markaasi bilaabo doorashada golaha shacabka sidii markii horeba uu u bilaabay doorashada aqalka sare hogaamiyaha Jubbaland ayaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo wuxuuna halkaas kula sugan saraakiil ka tirsan dawladda Kenya kuwaas oo la sheegay inay wakiil uga yihiin hogaamiyaha Kenya ee Uhuru Kenyatta doorashada Axmed Madoobe ku qabanaya Kismaayo iyo Gado wararku sida ay sheegayaan xubnahan ka socda Kenya ayaa u muuqda kuwa markaasi doonaya inay goobjoog ka noqdaan doorashada xildhibaanada lagu dooranayo magaalada Kismaayo doorashada aqalka sare lagu qabtay magaalada Kismaayo ayay sidoo kale goobjoog ka hayeen sida la aaminsan yahay waana ceeb iyo fadeexad in xubno ka socda Kenya ay ka mid noqdaan xubnaha korjoogteen
doorashada aqalka sare. iminkana waxaynu gudagalaynaa dood ku saabsan arrimaha aynu soo xusnay iyo qodobo kale. maxamed axmed oo isha ku haya arrimahaas ayaan soo dhaweynayaa. maxamed axmed oo soo dhawow marka hore, marka xigta bal kow waxaad warbixin naga siisaa arrinta gobolka Gedo iyo sidoo kale guud ahaan Jubbaland ee Axmed Madoobe doorasho ma bilaabi karaa iyadoo markaasi aan heshiis laga gaarin khilaafka Farmaajo Roble. bal aragtidaada kooban soo dhawow. wararka laga leeyahay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland waxay sheegayaan in halkaasi uu ku soo labtay hogaamiyaha waqtigiisu dhamaaday deegaanada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. wararba waxay sheegayaan Axmed Madoobe oo mudooyinkii ugu dambeysay la sheegay in xaalad caafimaad uga maqnaa deegaanada Jubbaland dhanka kale inuu gaaray dalka Imaaraadka Carabta halkaasi oo la tilmaamay dawladda Imaaraadka Carabta laga badan xilligan ay ku soo siisay faralidi kuwa amniga iyo sidoo kale khalqal xagga doorashada inuu ka sameeyo gudaha Soomaaliya. waxa la tilmaamay Axmed Madoobe inuu gaaray dalal oo caafimaadkiisa ay si weyn uga tacaalay kamid dalka Kenya. waxa la tilmaamay maalmihii ugu dambeysay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya inuu kulan kula qaatay mas'uuliyiin kamid ah dawladaha Kenya, Djibouti iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. halkaasi waxa la tilmaamay in kulankaasi si weyn loogu faaqiday arrimaha doorashada gudaha Soomaaliya sida arrimaha doorashada ee gudaha Soomaaliya sidoo kale sida xilligani loo dhaawici karo doorashada guud ee la filayo inay ka dhacdo gudaha Soomaaliya. wararka hoose ee la helay ayaa waxay tilmaamayaan in kulankaasi dawladda Kenya loo xilsaaray in duqeymo ka geysto qayb ka mid ah gobolka Gedo, halka sidoo kale Axmed Madoobe isagana loo xilsaaray in dagaal la sukeeyay iyo sidoo kale faralidi ku amniga oo ka sameeyo gudaha magaalada Kismaayo. waxa la tilmaamayaa in magaalada Kismaayo Axmed Madoobe soo gaaritaankiisa cabsi badan ay ku abuurtay siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugnaa gudaha magaaladaasi, iyagoo oo la socday talaabo kasta Axmed Madoobe uu doonayay inuu ka fuliyo deegaanada Jubbaland. waayahay maxamedow, dhanka kale markaynu eegno waxaa jiray maamulka gobolka Gedo shir jaraa'id ay qabteen maalintii shalay ahayd. waxay uga hadleen doorashada Jubbaland in Axmed Madoobe gabar ka socota aysan Gedo tagi karin. waxay sidoo kale ka hadleen doorashooyinka federaalka. ma la dhihi karaa maamulka gobolka Gedo waxay u diyaar garoobeen doorashada Jubbaland maadaama Axmed Madoobe waqtigiisii uu mar hore dhamaad? aad baad u maasantahay. waxaa soo baxay tuuno in budda laga qabay wada shaqeyn rasmi ah oo leeyihiin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta awoodiisa la dhimay Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale barasabka waqtigiisu dhamaaday ee deegaanada Jubbaland Axmed Madoobe. Roble ayaa markii uu gaaray deegaanada kamid ah gobolka Gedo gaar ahaan magaalada madaxda gobolkaasi ee degmada Garbaare kulan uu la qaatay waxgarad iyo siyaasiyiin ku sugan gudaha magaaladaasi. waxay halkaasi u soo dhiibeen xubno dhowr ah iyadoo xubnahaasi Roble uu ka ballan qaaday in uu gudbin doono Axmed Madoobe si maamul loo dhan yahay looga dhiso magaalada Garbaare oo la filayo inay ka dhacdo doorashada qaybta labaad ee deegaanada Jubbaland. Axmed Madoobe guddigii dhawaani gaaray gobolka Gedo gaarana degmada Garbaare oo ka koobnaa wasiirada maamul goboleedyada dalka ayaa xubno afar u soo dhiibeen waxgaradka. waxa ay ku wareejeen ra'iisul wasaare Roble iyadoo Roble uu sheegay inuu u diray Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa in muddo diidanay inuu gabiyaanba ka soo jawaabo guddigaasi sidoo kale maamulka loo dhisay degmada Garbaare. arrimahaasi oo jiray oo maamulka gobolka Gedo mudooyinkii ugu dambeysay si weyn ay ugu eedeynayeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa haatan waxaa soo baxday in Axmed Madoobe uu shir ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo uu kaga dhawaaqay in deegaanada Jubbaland xilligan ay si weyn u garab taagan yihiin Roble, halka sidoo kale hadalkiisana ay ka muuqatay in qolana uu si gooni ah uusan u raacsanayn macnaha Roble Farmaajo dhaxad uu kariyo. arrintaasi waxa si weyn uga carooday maamulka gobolka Gedo oo aaminsan in 20 Agoosto uu dhamaaday muddaxileedkii Axmed Madoobe. iyagoo shirkooda jaraa'id oo uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulle Greed oo tilmaamay xilligan inuu Axmed Madoobe marnaba ka hadli karin amniga iyo doorashada intaba deegaanada Jubbaland. waayahay meeshaas marka hadii aan su'aal ka weydiiyo heshiiskii 17 September 27 May intaba waxa ku jiray in doorashada Gedo lagu qabanayo oo garwadeyn ka Axmed Madoobe guddiga Axmed ka socda ay tagayaan gobolka Gedo. arrintaas si isku qabanaysa hadii maamulka gobolka ay diidaan heshiiskii hore? xilligani waxa muuqanaysa in maamulka gobolka Gedo horta heshiiskaasi sida ku xusnayd doorashada gobolka Gedo waxa si toos ah u shir gudoominaya amaba laga maamulaya xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. dhanka kale Axmed Madoobe qabashada doorashada gobolka Gedo waxa uu kaliya oo ku lahaa guddiga doorashada deegaanada Jubbaland oo magacaabay oo kaliya inay tagayaan gudaha magaaladaasi. sidoo kale afar xubnood oo loo gudbiyay oo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Gedo ay soo gudbiyeen oo la doonayay inay noqdaan gudoomiyaha degmada Garbaare iyo ku-xigeenkiisa inuu soo magacaabo. labadaasi door bay ku lahaa xilligan waxa muuqanaysa Axmed Madoobe uusan doonin wax door inuu ka qaato. sidoo kale Axmed Madoobe iyo dawladda Kenya waxa la sheegay in maalmihii ugu dambeysay duqeymo ka geysteen gobolka Gedo la doonayay laba arrimood in lagu fashiliyo. waa arrinta koobaad in 12 bishani waa mid 12 bisha October in
ku dhawaaqida maxkamadda cadaaladda adduunka CJ kiiska Soomaaliya ee badda Soomaaliya Kenya muranka gelisay iyo sidoo kale doorashada la filayay ka dhacdo gobolka Gedo dowladda Kenya ayaa saacadii ugu dambeysay xasuuqyo aan loo meeldiin ka geysatay qayb ka mid ah gobolka Gedo iyadoona ilaa iyo hadda xukuumadda xilgaarsiinta aan wax war laga haynin halka Axmed Madoobe weligiis buusan ka hadlin duqeymaha ka dhaca gobolka Gedo ee geystaan ciidamada dowladda Kenya wayahay maxamed marka dhinaca kale markii aynu eegno doorashada federaalka markii aynu u soo laabano warar baa sheegaya in Axmed Madoobe ee markaas soo laabashadiisu ay ka dhigan tahay inuu bilaabayo isugu doorashada golaha shacabka Axmed waxa lagu yaqaan inuu bilaabo doorashada aqalka sare intaysan hogaamiyaasha kale aysan bilaabin warar kale baa sheegaya in Rooble isugu heshiis ku galeen in Axmed doorashada uu bilaabo marba haday doorashada golaha shacabku ay bilaabatay noqon doonto sida tan aqalka sare kale maadaama Axmed culays badan ay saaran yihiin oo doonay inuu culays isaga fududeeyo isaguna doorashada u bilaabo ma suura galay in hogaamiyada doorashada golaha shacabka bilaabo iyadoo markaas wali taagtaagan farmaajo Rooble u dhaxay u jiro aad bay u adag tahay maxaa yeelay dadka siyaasiyiinta ay ku nool deegaanada Jubbaland Kismaayo iyo sidoo kale gobolka Gedo Jubbada Hoose Jubbada Dhexe intaba midnaba ma aqoonsan Axmed Madoobe haatan uu yahay hogaamiyaha deegaanada Jubbaland 20 Agosto ayay ku akid 2 sano ugu dartay dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan waxay u arkaan inuu yahay shakhsi kamid ah siyaasiyiinta deegaanada Jubbaland walow ay qabaan in si dhow loola xisaabtamo ilaa iyo maxkamad la soo taago dhanka kale waxyaalaha sida aadka uga caroodeen ayaa waxa kamid ah in Axmed Madoobe uu ka hadlay kiiska Grand Talier oo sheegay waa in cadaalad heshiis degdeg ah afayeenka gobolka Gedo ayaa waxa uu weyn carabka ugu adkeeyay in gudaha magaalada Kismaayo lagu laayay gabdha Soomaaliyeed aqoon-yahano Soomaaliyeed waxgarad Soomaaliyeed intaba cid Axmed Madoobe kula xisaabtanta aysan jirin xilliganina uu san Axmed Madoobe marba cadaalad ka hadli karin marka way adag tahay in doorasho ka dhacdo deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale inay bilaabato doorashada deegaanada Jubbaland dad baa iyaga qudud waxay leeyihiin Axmed ma uusan ka hadlin duqeynta Kismaayo waxbuu ku og yahay lug buu ku lahaa in qalalaas laga bilaabo Gedo si doorashada bari ka maalin cudurdaar loogu sameeyo arintaas ayda maxaa kala socota arintaasi way cadahay oo mid qarsoon maaha Axmed kama uusan hadlin duqeynta ka dhacday gobolka Gedo oo saacadii ugu dambeeyay lagu xasuuqay ku dhawaad 5 qof oo dad shacab reermiya waxa uu ka hadlay kiiska Grand Talier waxa uu ka hadlay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble isagoona runtii si la fahmi waayay uga hadlay marka waxa muuqanaysa marka Axmed Madoobe deegaanada uu sheeganayo inuu san ka hadli karin Axmed Madoobe waxa la ognahay in magaalada Kismaayo ku hayso dowladda Kenya marrabana inuu san ka hadli karin arrimaha dowladda Kenya ku aadan deegaanada Jubbaland dowladda Kenya sida ay horeyba u sheegtay waxay balance ka leedahay deegaanada Jubbaland oo ay rabto gobolka Jubbaland maadaama uu yahay gobolada kheyraadkooda aad u badan yahay gobolada Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo Gedo dowladda Kenya ay si weyn ugu taamaysan gobolada si gabi ahaan ay Soomaaliya kala wareegto Axmed Madoobe waxa uu aragtaa gabadha ay ugu soo gaban karto goboladaasi inay si sahlan gacanta ugu dhigto dhanka kale bulshada waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada ururada qaybooda kala duwan ee ku nool deegaanada Jubbaland ayaa xilligan waxa uu arkaan Axmed Madoobe shakhsi aan marraba mudnayn intuu ku sugnaa deegaanada Jubbaland waxa la socota in deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo oo hadda ah magaalada madaxda ee ku simaha deegaanada Jubbaland halka buu alaaytay magaalada madaxda in 5 kilomitir gaadiidka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta midna aysan ka bixi karin oo hadiiba gudaha magaalada Kismaayo dhinac uga baxdo haraadiga nabadiidka ku qabsanayaan marka arintaas aad baa u adag tahay runtii xilligan waxa muuqanaysa in doorasho ka dhacdo deegaanada Jubbaland ay tahay mid aan sahlanayn aad baad u mahadsantahay maxamed waan ku mahad celinaya adiga iyo daawadayaasheena ku xiran barta Suldaanka TV warkiin halkan ayaan ku soo